waan ku salaamay daawade ku soo dhow muuqaalkeena maanta oo ka duwanaan doona muuqaaladeenii hore waxaan ku soo qaadan doonaa 3 shakhsi oo ka caan ah dunida waxaana kala yihiin professorka ugu daadayar adduunka iyo sidoo kale aaladda dadsameega isla markaana metelasa habdhaqanada ibnaadeenka shakhsiga saddexaad aan ku soo qaadan doonaa waa gabadha wadnaheega sidata haddaba in daawada intaananu bilaabin muuqaalkan fadlan subscribe saar channelka sidoo kale like sar muuqaalkan lana wadaaga saxaabtaada qaaliga ah haddaba shakhsiga koowaad soo qaadanaa waa professorka ugu daadayar adduunka magaciisa saddexani waa Soborno Isaac Berry waxa uu ku dhashay gudaha Mareykanka magaalada New York 2012 waxaana uu ku nool yahay isla magaaladaas asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa Asian American ama waa dadka Aasiyaanka ee u guuray Mareykanka isla markaana qaatay dhalashada Mareykanka waxa loo tixgeliyaa ama lagu tilmaamaa inuu yahay professorka ugu daadayar adduunka sidoo kale sanadkii naga dhamaaday ee 2021 waxa uu ahaa mid ka mid ah musharaxiinta Nobel Prize-ka qaybta sayniska iyo culuumta xisaabaadka haddaba professorkan uu ku takhasusay mawdiga sayniska iyo xisaabaadka shakhsiga labaad ee soo qaadan doona waa Salwa Hussein waa gabadh ku nool UK ama Britain waxa ay muddo 2 sanadood xambaarsanayd isla markaana ay sidatay wadnahaasi oo ahaa mid artificial ah ama mid gacanta lagu sameeyay haddaba boorsada ay gabadhani xambaarsan tahay ma ahin wax kale ee waxa ku jira waa wadnaha dadsameega isla markaana uu qabanayo shaqadii uu qabanayay wadnaha caadiga balse muddo kadib waxa loo geliyay wadnaha dhabta ah oo ahaa markii hore mid ay sugaysay isla markaana qof mutadawwici ugu tabarucay in wadnaha loo geliyo balse waxay sugaysay intuu qofkaasi dhimanayo muuqaalkana sidoo kale waxa ku soo qaadan doonaa shayga dadsameega isla markaana metelaya habdhaqanka dadka ibnaadeenka would say my true biological parents to create something very special and unique the Singularity Net Foundation Safia waxa markii ugu horeysay hal hawl gashay ama lagu arkay adduunka 14 bishii February 2016 haddaba daawada shaygan nadarka samaahin qof ibnaadana ee waa Robert Hi Sophia. I'm hearing ringing in my ears. Who's that? It's me and it's you. What? I'm Sophia. What? I'm Sophia being AI. I'm the virtual version of you created by being AI. Robert kana loo qaabeeyay boqoradii masaarida ee Nefertiti waxa aan ku tahay dhaqdhaqaaqa ay sameynayso isla markaana ay ku metelisay ibnaadeenka laga bilaabo 2018 qalab dhismeedka Sophia waxa ka mid ahaa software-ka qorista nidaamka wada sheekaysiga oo loo yaqaan Open Conversation Sophia waxay ku dayataa dhaqdhaqaaqyada ibnaadeenka iyo tibaaxaha wajiga ama fariimaha wajiga ee loo yaqaan luqadda jidhka waxay awood u leedahay in ay ka jawaabto su'aalaha qaarkood iyo inay samayso wada sheekaysi fudud oo mawduucyo hore loo sii qeexay oo tusaale ahaan cilmiga oo kale haddii aad su'aal cilmi ah weydiisid oo ay ka jawaabaysaa haddaba software-ka sirta ah ee Sophia waxaa nashqadeeyay shirkadda Hanson Roberts haddaba daawada waxyaabaha cajiibka ee Robertkan Sophia uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu ku soo wareegay adduunka badankiisa isla markaana uu booqday dhammaan wadannada caalamka sidoo kale Robertkan waxa uu haystaa dhalashada waddan ka mid ah wadannada Carabta waana waddanka kaliya ee siiyay dhalashada waddankaasi waa waddanka Saudi Arabia ayaa markii ay booqatay waxa la siiyay dhalashada isla markaana waxa loo tiiriyaa in ay tahay muwaadinad reer Sacuudiya haddaba daawada haddii ay banaanka ka soo horbaxdo isla markaana aad ku aragtid adigoo aan information badan ka sii haysan ama xog badan waxay kula muuqanaysaa in qofkan yahay qof gabadha isla markaana ibnaadana daawada waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan la wadaaga asxaabtaada qaaliga